عشقي يقول يلاي تلادي يا بانيس إلي يقلي يلا ريمها نسقاي إنك يلا ترتوم يا باليسا عشقي يقول يلاي تلادي يا بانيس إلي second time kulanti wanaagsan daawadayaashayda qiimaha leh meel kastoo daafaha dunida ka joogtaan ba waxaan mar labaad jaanis u helay inaan halkan idin soo mariyo maasala magac baxay daygu maag waa heesaadu kooban waa dareen aan ka qoriyay qiso jacayl ah oo dhex martay mid ka mid ah asxaabtayda qisadani waa qiso jacayl oo aad xanuun badan maasadanina waa maasa ka turjumaysa dareenka wiilkaas aan saaxiib lahayn waxaana ay ku bilaabmaysaa hudhud yahow dhambaal adigoo ku hilan heertii subaxa anigoo habiyo soo imaad hor iman markaad tidhi haldhaa wiil kala hantiyey soo la ima helin oo maan heqlayn aniguna halkii hudhud yahow dhambaal aan kugu hilee hodan maad u geyn umaageega iyo dawliil habboon ugee hodan haldhaa وبالوس وركانا العبار شيك هولها أدون الكياي مرين هدمو يعيل هبين يدران إن هذا ديتي هرددي كقواي واتشي وركو وبحلو هليي وهي سومد مقال هوا قبل شعيل إنه إيها ويلي دمر إن علمي هدين بور إيها باس إنه هوين درتي وقاقو أي هرددا uga haray dhigii oo hubna u galay hodanay dartaa cadcidiya hawada hoy kama galo masixdoo habeen maharsado dharaar waxaana ay hubaal ruuxa laabay oo hirarkaa dunidu ku rideen hog weyn oo aan hogashadayn waxaana ay oon haraadan oo hamuun baan qabaa amigaba ma gelin وادواي هودن أي درتا إنتن هود كجلي قد نما حبين قد رحمة حبين انتها بسهلي هررية دقاق دحش لينا يو ونهرادن وهم بان قباها همي قبل مجرين وادواي هودن داود يعني ما صدني أو ما ساعدك وبن وقصبتي مدرن شعيل oo ku dhacayna man saaxiibnahay oo laga guursaday gabadhii oo aad ka jeclaa kadib markaan xamili waayay dareenkiisii ee uu saameyn fara badan igu yeeshay ayaan ka tiriyay heesta kooban. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. I must stick with you. You know